waxay ahayd jasiirad yar oo sabool ah oo kaneeco badan waxaana ay noqotay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka sidaas ayuu Lee Kuan Yew ku asaasay Singapore aan maanta wada garanayno Singapore waxay ahayd oo kaliya mustacmarad yar oo sabool ah oo Ingiriisku gumeystay waxaana sanadkii 1959 ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay dalkaasi loo doortay Lee Kuan Yew kadib doorashooyin si dimuqraadi ah u dhacay Singapore waxa ay ku biirtay midowgii Malaysia sanadkii 1963 xilligaas oo ay ka xoroobeen gumeystihii Ingiriiska laakiin 2 sanadood kadib Malaysia waxa ay go'aan ku gaartay inay xiriirka u goyso Singapore iyadoo sidaana Singapore ay ku noqotay dawlad madax bannaan waa xilligii uu ilmeeyay ra'iisul wasaare Kuan Yew isagoo ka murugaysan waxa uu ka yeelayo waddan sabool ah bohollo iyo wasakh badan kaneecaduna ku badan tahay baaxadiisuna aysan ka badnayn 720 kiiloomitir oo laba jibaaran intaa waxaa dheer inaysan jirin luqad midaysa shacabka Singapore qowmiyad iyo taariikh toona waxaa taa ka sii darneed iyadoo dalkaasina uusan lahayn shidaal iyo dahab midna dhibaatooyinkaas oo idil ayuu ka hortagay Lee Kuan Yew iyadoo ay weheliyaan intii ugu khibradda badneed xukuumaddiisa waxaana ay dejiyeen qorshe ay dalkooda ku horumarinayaan oo ay ugu horreyso sidii ay ku soo jiidan lahaayeen maalgashadayaasha ajaanibta ah iyo inay dadka reer Singapore u jiheeyaan dhinaca waxbarashada wax walba ku qaadatee waxaa intaa dheereed inay go'aan ku gaareen inay gebi ahaanba indhaha ka sii jeediyaan siyaasadda waayo waqtiga haatan la joogo waa waqtigii shaqada oo kaliya Singapore waxa ay awood u yeelatay inay soo gasho farsamada maraakiibta sameynta birta soo saaridda maadada petrochemicalska ah ee laga soo saaro shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah iyo weliba qalabka korontada ku shaqeeya shirkadaha ugu waaweyn caalamka sida Shell iyo ISO ayaa maalgashi ku sameystay waddanka Singapore dhammaadkii 90-meeyadii waxa Singapore ay noqotay dalka saddexaad ee lagu sifeeyo shidaalka ee ugu weyn caalamka iyo sidoo kale suuqa saddexaad ee ugu weyn ganacsiga shidaalka adduunka marka laga reebo New York iyo London waxa ay hormuud kaga noqotay caalamka dhoofinta waxyaabaha kiimikalka ah ee laga soo dhex saaro shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah iyadoo dekedda Singapore-na ay noqotay mid ka mid ah dekedaha ugu shaqada badan caalamka intii waqtigaasi lagu guda jiray inta badan shacabka Singapore waxa ay noqdeen dad aqoon leh waxaana ay ku wada hadlayeen luqadda Ingiriiska taas oo noqotay luqadda rasmiga ah ee dalkaasi maadaama Singapore ay dhaqaale ahaan sare u kacday waxa ay xallisay dhibaatooyinkii dhinaca guryaha oo markii hore aan nidaamsanayn iyadoo dhulal u qondeysay shacabkeeda kuna wareejisay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dhismaha si guryo qurux badan loogu dhiso dadka reer Singapore 85% dadka reer Singapore waxa ay yeesheen guryo ay iyagu leeyihiin waxaana hoos u dhacay heerka shaqo la'aanta ilaa 3% sanadkii 1980 waxa sare u kacay dakhli sanadeedka dawladda Singapore oo sanadkii 1960 ahaa 7 bilyan oo dollar isagoo gaaray 360 bilyan oo dollar sanadkii 2016 sidoo kale waxa kor u kacay dakhli sanadeedka soo gala qofka Singapore-ka ah oo markii hore ahaa 435 dollar waxaana uu gaaray 80,000 oo dollar isla xilligaasi ra'iisul wasaare Lee Kuan Yew waxa uu la kulmay cambaareen fara badan taasoo la xiriirta nidaamkii xukunkiisa oo uu si toos ah u maamulayay muddo 30 sanadood ah laga soo bilaabo 1960 ilaa uu isagu iskiis xilka uga degay sanadkii 1990 laga yaabay inuusan ahayn hogaamiye dimuqraadi ah oo lagu daydo maadaama inta badan la tilmaamo in qoyskiisu ay maamulayeen dawladdiisii oo uu ka midka ahaa wiilkiisa Lee Hsien Loong oo ra'iisul wasaare ka noqday Singapore 2004 laakiin sidaas oo ay tahay Lee Kuan Yew waxa uu ahaa hogaamiye dadaal badan oo hormariyay Singapore kaas oo dalkiisa oo sabool ah ka dhigay xarun maaliyadeed oo caalami ah oo ay ku badan yihiin dabaqyada dhaadheer ee daruuraha ku dhow isla markaana hay'adaha xukuumadda Singapore ka dhigay mid ay aad ugu yar tahay musuqmaasuqa baasaboorka Singapore ayaa waxa isaga iyo midka Jarmalku ay wada galeen kaalinta koowaad ee baasaboorada ugu awoodda badan caalamka sanadkan 2017 waxa kaloo dhacday in dakhliga sanadlaha ah ee Singapore uu la ekaaday dakhliga sanadlaha ah ee waddanka Malaysia oo 250 sanadood ka hor iska goysay iyadoo la og yahay in Malaysia ay 450 jeer ka weyn tahay Singapore ninkani
waxa ay ku xasuustaan dadka reer Singapore naanaysta wasiirkii macalinka ahaa ama macalinkii weynaa, waxaana markii uu geeriyooday sanadkii 2015 diiwaanka taariikhda loogu qoray inuu ka tegay sumcad wanaagsan iyo dal hodan ah oo lagu tiriyo mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka.